هلا 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 هلا. السلام عليكم. هلا 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 هلا. السلام عليكم. السلام عليكم. دمان وإذن وذا السلام يا وحان إذن كل سلام يا سلامة إسلامك. السلام عليكم. soo dhawaada asxaabta dhammaan anigoo magaciina aan soo wada koobi karin dhammaantiin inta ugu horeyso soo gashay hal iyo laba aan dhahaynin wariye abwaan fanaan shacab intaba waa ku isku wada jirtaan waan u jeedaa waa idin wada salaamayaa salaan kal iyo laaba baan idin salaamayaa waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka. assalaamu calaykum. soo aruura soo aruura qodobo muhiim ah baan ka hadli doonaa hadduu alla idmo. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا وحان إذن علينا يا أنت هذا الصوغ الشي سلام الله ديق عدي سو دوادا. السلام عليكم بان إذن الله يا أنيقنا. السلام عليكم. السلام عليكم. سو أرورا هذا الكوحوية كما سؤال علين كروايل بانا هاي بل هالمر آن مهم كان أصوغ لي إساقو سا آنا أبضنين باوحن رباه إنان سلو ذاقنو أناقو إذل قف كستو موادين سوماليادني حق بو أولي هاي إنو كهدلو وحي فكر كيسا أنا وحن دور بضمانتا wixii fikirkayga ah inaan ka hadlo uma nooli only fanaanad jacayl ku haysta inaan ahay ee waxaan u noolahay wax walbo oo ummadda Soomaaliyeed quseeya inaan ka hadlo wasay ila tahay anigu idinkana dabcan idin la tahay meeshan qabyaalad uma soo gelin mudaharaad uma soo gelin hunno uma soo gelin farxad iyo qosol uma soo gelin halla iska hadlo uma soo gelin laakiin waxaan u soo galay shacabkaygu aan jecelahay iyo inaan jecelahay Soomaali inay midowdo intaasaan u soo galay marka waxaan jecelahay inaad soo aruurtaan dhagihiina aad amaahisaan aad baad u salaamantiin idinkoo dhan asxaabteyda aan jecelahay aad baad u salaamantihiin saad ii jeceshiin baan idin jecelahay gabadhiinii baan ahay idinkuna shacabkaygii baad tihiin idinka un baana dabcan wax idinku ahay xaqiiq marka laga hadlayo dhankiina haddaanan qiimo aanan ka lahayn qiimo ma yeelan lahayn anigu horta si fiican ma la ii maqlaa hargabna wuu hayaa maantee ma qayliyaa mase caadi wey qaylada iska imaan doontaa yaa
yuusuf hala soo boodin wax noo sheegdee anigu kuma soo raadsan adaa isoo raadsaday haddii aadan sugi karin waad iska bixi kartaa soomaali wax ma sugto intooda badan inta qiimaha badan oo quruxda badan oo degan allah inagu wada daro wax sugta wax fiirisa wax akhrisa okay horta waxaan rabaa laba qodob in aan ka hadlo ma jecli inaan de hortiina un idin ag fadhiyo soo aruuro un aan idin dhaho waa inaan guda galaa mowqifka dee aan maanta aan u soo galay live-ka barnaankii baan soo fadhiistay si xataa shanqar iyo aysan idinkugu yeerin mise caruurta aan kaga soo cararayo waxaan fadhiyaa barxaddii gadaalee bannaanka dabcan waa ujeedaan ya waxaan rabaa in aan waqti fiican oo kooban inaan isla qaadano shacabkayga aan jecelahay khad telefoon baa isoo galay iga raalli ahaada dadka waxaan kaga yaabay iyagoo u jeeda in oo life aad ku jirto bay iska kaa soo wacayeen waa waxyaabaha aan macruufka aan ku nahay weeye taas haddaan Soomaali kow marka ugu horeyso wariyaa muslim ah mucjisa taagan marka ugu horeyso waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu intay soo salaantay wa calaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa horta ummadda Soomaaliyeed marka ugu horeyso horta nabigeena ku saliya marka ugu horeyso fadlan nabigeena ku saliya idinkoo degan oo aan wax wada hadli karno inaan wada hadalnaa wanaagsan nabigeena ku saliya allahumma salli ala sayidina maxamed marka ugu horeyso marka xiga horta ayaamahan social media waxaa dhex socotay haddaan hormariyo taa laki xaaji wacays baa hees soo qaaday oo madaxweyne farmaajo u soo qaaday baan ayaamahan u jeedo dhowr qof xataa oo linkiska uu ii soo diray horta taa haddaan ku hormaro waxaasi waxba kama jiraan iyadoo aan soo koobayo waxaasi waxba kama jiraan taas maaragtay waxba kama jiraan maxaa yeelay Soomaalida qaar horta dhibaatada aan qabna maxay tahay wax ma hubsano waxba ma hubsano hubsimo hal baa la siistaa in wax la hubsadaa wanaagsan anigu waxa weeye heesta qalbi dile waa hees jacayl ah abwaanadayda korontaana samaysay heestaasna waxay soo baxday ciidii bay soo baxday TV-ga qaranka SNTV baana aan ka qaaday laakiin intaa la soo goostay laga dhigay maxaan ku raahdaa hees bay laki siyaasad heestiyo laga dhigo horta waan ka xumahay taana waxaan idinka leeyahay wax jira maaha wax ka jiro ma jirto heestu waa jacayl dhagaysta no excuse me dhagaysta heestu waa jacayl waad u jeedaa marka waxba la akhrin maayo waxba looma hubsanayo waxa weeye aflagaadada wax la soo qorayo war heestan horta fiiri qof nool ba ilaahay ka dhiga heesta dhagaysa marka ugu horeyso lagaaga sii heestu ma amaanba ma aflagaada ma siyaasadba marka ugu horeyso horta inaad horta aad dhageysatid oo aad dhagaaga ama hayso soo maaha
hees jacayla waxaa lagugu gudinayaa maxaan ku rahdaa hees waxaa lagugu gudinayaa meesha waxaa calaa ii taxaltaa taasaan idinka leeyahay heestaasi ma qusayso siyaasad iyo madaxweyne iyo walaa ra'iisul wasaare iyo walaa dawlad ma qusayso heestu waa hees jacayl ah taa xaggan uga baxayaa tan xigta waxaan rabaa inaan ka hadlo fakarkayga aan ka dhiibto arrintii ee foosha xumayd ee ka dhacday 23 bishan aan ku jirno Soomaaliya gaar ahaan caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho taasoo ah Cabdikariin qalbi dhagax oo dawladda Soomaaliya oo ay u dhiibtay Ethiopia horta marka ugu horeysa markaan hadlayo waxaan jecelahay walaalahay qaaliga ah inaad horta iska dhaadhicisaan oo aad ka hadashaan wuxuu Ilaahay idin la og yahay oo aad u fikirtaan sidoo Ilaahay kula og yahay oo aad u hadasho sidoo Ilaahay kula og yahay siyaasad ha gelin qabyaalad yeysan ku gelin qabiil yeysan ku gelin soo waxa garatay maaha laakiin waxa weeye hadaanu Soomaali nahay maskaxda waxa naga fariistay maskaxda waxa naga fariistay qabyaalad iyo qabiil subhanallah war qabiil iyo qabyaalad god kula gali maayaan kaligaaba god ka galayo kaligaaba lagu xisaabinayaa kaliga baa xisaab soo waxa garatay maaha marka sheenada qabiilka xagga iska dhiga iyo qabyaalada iyo qurunka taan naga ma baxaysa garan maayo goortay naga baxaysay ya ko fadlan walaal hay soo wicin waad u jeedaa live inaan ku jiray ha isoo wicin mise blog baan ku saaraya haddaad mar dambe isoo wacdo min sharri ma khalaq kow dhaha arrintan waxay aniga ila tahay baan rabaa inaan ka hadlo ilaa ayaamahan dhan horta hubsiima hal baa la siistaayo waan hubsanayay aniga oo waxaan rabay in aan hubsado oo waxaan run inay tahay inay dhalanteed inay tahay inaan kala ogaado kow hadalkii shalay golaha wasiirada ka soo yeeray oo ahayd arrintan inay sax tahay inta ka horeyso dhan ma aan aaminin anigu inta ka horeyso maanan aaminin anigu shalay markii la yiray ona lefta waxa weeye al-shabaab oo qalbi dhagax wuxuuba u joogaybo caasimadii Muqdisho al-shabaab ayuu wuxuu kula jiray dagaal oogu ahaa markaas waaga igu bariya aniga marka xaq baan u leeyahay in aan ka hadlo fanaanka inuusan hadli karin baad moodaa aniga sheenada fanaanka waa man ka baxayaaba markii ay sheenadan ay marayso aniga waxaan ahay wariye fanaanka hadhow u soo laabanaya hadda saacada la joogo waxaan ahay wariye sheenada fanaanka goortaan rabo waa kala bedelanaya de sidaan rabaan anigu ka yeelaya fanaan ma hadlaad idinku isleedihiin fanaanka wuu hadlaa wixii xaq ahna wuu ka hadlaa wixii asaga dhibayana wuu ka hadlaa yuuna la hadlaa shacabkiisu la hadlaa intii ka qaadanayso iyo intaanan ka qaadanaynin iyagay qusaysaa laakiin anigu kallaki ahaan aad baan uga xumahay arrintii foosha xumayd ee dhacday oo dawladdeennii Soomaaliya ay ku kacday aad baan uga xumahay kolley waxa weeye onelef argagaxiso maaha argagaxiso ma aha mana u naqaano weligeena maana maqlin shalay baa iigu horeysay oo aan maqlo in ay maxaan ku raahdaa onelef ay argagaxiso ay noqotay haddaan su'aal idin weydiiyo ururkii SYL
حرني مدونك أرجع حسمي وها هذا واحد ويدي ولا ليالو كمان ولا ليالو إسكدة قبيلك قبيلات الدنيا قرن كإذا كجلي أو قفل بابا إن أدركس مثلا أدركس بعد ججها يا مركز وحي وكبودية إن محنكر هذا إن قف كاجي يعني وحلقة الشيء وروح الشيء هذا سمجرته وحفي عن رنت إن لجهد لا في عن رنت أديكو كوحد لينا كل مو ور إلهي كعب صدا ور إلهي أطوبت كينا وروحان صعب كأساس لو صعب تميو أو بنت ما فينا يا رسول الله هي وحي كل ما يكهذل لكن كذا وحوي ده أدركي بهالك فرية سيدي أنا وحنا قشة يسقى قدرنا نوجه ده وحنا لا يهاي أدركي وصحية سان ما فينا يا رسول الله هي أبهي هدي ما أنت وجاء هايو هدو قلدي وحنا لا يهاي بابا قلت بد كجرته أنا قلدني أنا يا شعب كيجا وصي أنا قلتها ولا ليالو أنا وحبا ما آخرين أيو واحد دون تنسك السوقرة محنكور هذا لكن وحن أنا أن هذا أصوغ علي فكر كيجا إن إذن لقى بصدون إذن شيء الشباب وما جرنا يو أنا لفت وحن أجرنا يا جبهة حرني مدون ورهذا مية نقطة سبحان الله يا أدونكو إذا أنت صار الشباب إيو محنك أرجع حسية بلايا لا شيء جاي وليد لقيه هنا ما قصة نعضي أنا اللي فوح ويا أرجع حسه شلي موياني أو قولهم والسر هذا أو ده ما جرنا يو مال لقى كنا ما جرنا يه أو ده يرهدين محنكو هذا وأرجع حسه ما قال ولي جن النجا الشباب مدت كم يسكو قرحيان ولي الصومالي ما دعكرتها ما مقشين وحيد أو إصدقاليان أو محنكرة أنا قبيل مجليو أنا قبيلات مربو سيدا أنا أو أن أركهم بنكو هذليا وحويه إثيوبيا أيدت كاسي لدقاليين سو وحجرتين معها مركا ورهدو حتى إثيوبيان أم حرك أجوينا وياهي خريرة ده حجي كجا قرنتها إله بان إذن كل شيء صومالية كمان صومالية إلهي كعب صدا والصومالية وحويه سال ما أهانيو ورلبا ملائك با لبدا قربوت كلا سارن او صح iyo qaladka ku kala qorayso ma aha in aad qabiil iyo qurun iyo in niyada aad iska galiso mase in tolkaaga yaan laga raaynin ma wanaagsana war ilaahay ka cabsada war adduunka meel ay kaga qoran tahay ma jirtaa qof wargaaladii iyo muslinkii wargaaladii baa ansixiyay adduunka oo dhan soo lama oran qof hadduu magangeliyo kuu soo galo lama dhiibi karo ilaah baan idinku dhaariye walaalayaalo qof bini aadan ah oo magangeliyo kuu soo galay hadduu xataa gaal u yahay xaq miyaad u leedahay oo adiga magangeliyo kuu soo galay yaa maanta in aad dhiibto maya hadda anagu wadan shisheeyaan ku noolnahay wadan shisheeye baan ku noolnahay wadanka shisheeye maanta haddii anigoo maanta London joogo haddii aan wadan kale aan qalad ka soo galay miyuu idhiibayaa idhiibi maayo heshiiska wuxuu ahaa adduunka dhan oo lagu heshiiyay yaa heshiiskii adduun weynaha wuxuu ahaa in qof hadduu magan kuu soo gala xataa gaal ha noqde in aadan cadowgiisii aadan u dhiibin war ninkan waa nin muslim ah qalbi dhagax waa nin mawaadin ah waa nin muslim ah waa nin ka soo shaqeeya ciidanka Soomaaliya waa nin maxaan ku iraahdaa jas war dawladeena maxaa ku dhacay haw niyadoodu ay u siiyeen in ay maanta intay qabtaan inay cadow ay u dhiibaan subhanallah waxaasi anigu ma ila fiicna waxa weeye qof kastana wixii uu ka danqanayo inuu sheego way fiican tahay ما إلى فعنا لكن مت أنيجا وحن لا يهي شعبك وبركعين ولا مظاهراتي وحلا مظاهراتنا ومواد كاسي أو إثيوبيان كلودي بي أم حارة يا لودي بي بالغو مظاهراتي دولة ديادا الصوماليات ويوجدان وحولبا نينك اللي يراهدو إن محنكو هذا فرماتشا إيو غيره إيو maanta waa dad dhalinyaro ah ma sha Allah kulligood waxa weeye Facebook iyo waa leeyihiin baraha social media way la socdaan mudaaharaadka iyo adduunka dhacaya way u jeedaan
marka weli waxaan anigu aan dabcan aaminsanahay in oo fursad ay haystaan shalay golaha wasiirada waxaa ka soo baxay in ninkaasi uu dagaal ooga u ahaa oo Soomaaliya Muqdisho inuu dagaal iyo uu ka abaabulayay al-shabaab uu la shaqeynayo laakiin dadka arintaasi ku hadlay waxa weeye garanay wasiiradii laakiin hadda waxaan sugnaaba waxay tahay kolley hadalkeenana way arki doonaan uuna arki doonaa aniga waxa weeye maxaan ku raahdaa dawladdan la hadlayaa shacab oo de warxuma tashiil ah iyo lama hadlayo dawladayada anagu ma rabna inay burburto dawladayada waxaan rabnaa anagu inay sideeda u taagnaato haddii arintan ay mission ay ahayd xataa dhibaatadan la geliyo xataa waxaan sugnaaba waa in dawladayada in ay ka hadlaan oo ay shacabkooda dajiyaan oo hadalna qanciyo ay ku soo hadlaan dabcan anagu golaha wasiirada aragnaye de waxa weeye golaha sare baan hadda aanu sugaynaa labada gole baanu sugaynaa wixii oo hadal ay ka soo yeeri doona hadduu alla idmo laakiin kolley ka laki ahaan anigu haddii wariyo ay noqoto iyo haddii fanaan ay noqotoba intaba waxa waa midkaan doonaan la soo baxayaayo labadiiba khibradda ilaah baa i siiyey waxaan leeyahay raalli kama ihi in qalbi dhagax la dhiibo raalli kama ihi shacabkana waxa weeye wada salkacay niyadda aad ka jabiseen dawladay niyadda idinkaa u dejin karo dawladay hadalkan inaad ka hadashaan aqalka sare in ay ka soo hadlaan na dejiyaan annagu hamin kacnay niyadeennii kiciseen walaalayaalow annagu burbur ma rabno dawlad aan annagu aan dejinayno mise aan ridayno ma jirto laakiin waxaan u baahannahay only reasonka iyo sababta kolley waxa weeye arrintan hadday mission ahayd xataa shacabkaaga adaa qancisan karo dawladoo la hadlaya waa dawladayadii Soomaaliya ya wixii hadal kala badbedelayo oo maxaa adiga kaaga galay waxa waaye halkaasay kala ahayd xaq baan u leeyahay mawaadin Soomaaliyeed hadduu xataa Ethiopian ahaa see loo dhiibayaa Ethiopian hadduu ahaa Ethiopian weeye baa la leeyahay war hadduu ahaa xataa magangeliyo kuugu yimide dawladdan baa tahay how aad idinku see ugu dhiibteen cadow hadduu ahaa xataa kaba dhigbo see ugu dhiibteen soo qalad maaha roobna waa soo da'ayaaye kowdhe xaqa ilaahay ha idin fahansiiyo Soomaaliya iyo xaqa Allah idin fahansiiyo halka erayaan idinkaga tagayna waxay tahay walaalayaalow ilaahay ka cabsada walaalayaalow qabiil iyo qabyaalad god idin la gali maayo godka kaliga baa galaya iyo karfantaada cadeed waxaad geysato ya baana la galaysaa adigu tan xigto waxaad isleedahay hadii qofna kuma jeedo waxaad doontaad qoraysaa naya hooy naya saan maxaa ka galay waxaad doonto baad soo qoraysaa laakiin ilaah baa ku xisaabinayo rabbigii ku untay baa ku xisaabinayo qofka walaalka aan xaq u malihid in aad qof aflagaadayso cayso waa ceeb nin rago waxa arkaysaa qof dumar ah soo caynayo hadalka kuma dheeraanayo mowqifkan u soo galo waxay ahayd aniga kuma raacsani dawladana waxaan sugnaa wasiiradii de shalay iska hadlaya wasiiradii go'aanka ay soo qaateen dabcan iska hadal baan badee aniga waa aqaanaa taa anagu nama qancin xukuumadda sare ayaanu hadal ka sugaynaa in qalbigeena ay noo dejiyaan dawladeena waa jecelnahay walaalayaalo midna waa idinkugu baaqayaa dawladeena yaana laga kala ridin waxaan waxa laga yaabaa xataa mission la soo abaabulo inuu yahay fadlan dawladayada fadlan yaa anagu caqabad iyo dhibaato waxaan 30 sano kor bay u dhaafaysaa intaan dhibaato iyo silac ay saxriir aan ku jirnay walaalayaalow anagu aan gacmaha isqabsano Soomaaliya tooso isku tiirsada hadba kiina taag daran taageera waligiin intaasaan anigu idin leeyahay qabiilne iyo qabyaalad iyo qurun god kula gali maaya karfanta cad baad ka qaadanaysaa kan qabiilka diloodayow iyo tan qabiilka dilootayay walle wacadalayo wacad rasuul inuusan qabiil god kula galaynin inuusan qabyaalad god kula galayn baan kuu sheegayaa aniga ee danta wadankaaga iyo shacabkaaga iyo dadnimadaada wadan qurba kuwii ku noolne dee qurbaha waa aragtay dhibkiise dhibaatada ilaahay hay naga saaro anigu waxaan leeyahay waxaan sugaaba intii ila qabtay iyada og waxaan sugnaaba oo aniga aan sugaa waa golaha sarsare
oo hadalna qanciyo na lagula soo hadlo anigu raali kama ihi wabillahi tawfiiq waa idin jecelahay wixii hadlaayaba ha iska hadlaano laakiin hadalkan idinkaga tagaya maxay tahay qabiil iyo qabyaalad god kula gali maayo wabillahi tawfiiq salaamu calaykum waa idin jecelahay idinkoo dhan salaamu calaykum